asxaabta asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waa miskiintii walaashiin ahayd magaaladan u socdaa. waxaan rabaa xaaladaha jiro inaan soo ogaado. waad aragtiin sawirka halkaas saaran. maantay ayaa lagu toogtay ninkaas Minneapolis. da-diisa hadda waxaa lagu sheego newska hadda aan ka daawaday inuu 35 jir yahay. qolooyinkii magaalada madaxda u ahaana waxay qabteen shir jaraa'id, iyadana gadaal baa inay kasoo sheegi doonaa waxay bal arrintaas ku dhamaatay oo hadda socotaa. mar dhow bay dhamaatay khudbadii iyo shirka jaraa'id ay qabteen. laakiin waad aragtiin ninkaas aad aragtaan maanta ayaa lagu dilay Minneapolis. xaaladda Minneapolisna waad ujeedaan. isla markiiba ninkaa fidyoogu yar baa jira, isagana aan hoos iniisoo raacin doono. ninkaa marka ay dilayaan way qabtaan oy dhulka dhigtaan, waad ujeedaan. meel kastana kolley waa ku aragteen. mid wujukayna feerbuu la dhacaa, mid jilibku la dhacaa, mid kanuu la dhacaa. marka dambe ay toogtaanna waad aragteen way kala cararayaan. ninka sidaas fidyoogiisa anagoo shacaba oo guryaha joogna aynu sidaa u qeexi karo waxa dhacay, ayay qolooyinkii waxay dhaheen wuu isdifaacaya askarigu oo ninku xabad buu watay. mid waa midda waad ujeedaan. marka xaaladda Minneapolis hadda waxaa isoo gaaraya in maaragtay aada mudaharaadka u xoogeystay, mudaharaad badan u socdo, xaaladdu ay kacsan tahay. bal wixii aan kala soo kulmo iyo wixii aan la soo arko waxaan rabaa meesha inaan aado insha allah. way aragtiin haddaan labisnaa gurigeygan ka baxaya, hadda guri kama bixin. haddaan newskii iyo waxaan daawanayo khudbadii shirka jaraa'id ay qabteen. laakiin waad ujeedaan waa toogashadii labaad oo clear ah oynu ujeedno oo haddana la difaacayo. hadda waxaa soo dhacaysa in stateka askar lasoo gelinayo, askartii stateku lahaa lasoo gelinayo. arrinta waxaa laga yaabaa inay kasii darto. xaaladdu marka meel xun bay maraysaa, siiba Minneapolis. askartaan anigu horaan inuu ku sheegay qaran horaan inuu ku sheegay inay askar caraysan oo kacsan oo iyaga dhanba neerfos ay yihiin. midda labaad waxaan u malaynayaa qoladan republicanka ahi shacabka dib dambe waxaan u malaynayaa inay waxba ka rabin oo siday u dhaqmayaan, qaabkay u hadlayaan. newskoodan Fox News isaguna kan ugu edeb daran ah oo nacaybka iyo fidnada faafiya sida uu hadlayo. iyaga nafkooda say u hadlayaan. madaxweynaha hadda durba warqada soo saar u leeyahay ninka hubaysan oo askarta khatarta geliyay maxaa booliisku tallaabo uga qaadi waayay. marka waxaan u malaynayaa Maraykan ninkii burburin lahaa oo maaragta gacantiisa ay ku burburi lahayd inuu Trump yahay. xisbiga republicankana ninkii burburin lahaa inuu yahay maxay ahayd ninka la yiraahdo Trump. midda labaad oo aan rabo inaan ku daro, Trump wax kasta oo Minneapolis ku saabsan oo uu ka hadlayo gabadha Ilhaan la dhaho kusoo qaataa. ninkan waa la yaabay Ilhaan muu jeclaado. waa su-aal u baahan la isweydiiyo. war wiilku Ilhaan wuu ka helay, laakiin hadda wiil kala qaba, nin kale ayaa qaba. marka waa nin jalasa oo kacsan. wuxuu ku leeyahay Ilhaan baaris lagu sameeyo oo Trump isaga nafkiisaba intaasoo baaris ku socotaa. tuuga ah intuu wadanka qabsaday dhaqaalihii ugu badnaa buu ka sameeyey. ninka ugu dhicid badan, ugu hanti qaadasho badan, ugu tuugaysan waa Trump. haddana Ilhaan 24 saac wax yar hadduu ka hadlayo Ilhaan buu kusoo daraa. haddeertaa qoraalka usoo dhigay iyo hadallada uu ka hadlayo Minneapolis Ilhaan way ku jirtaa. marka waxaan leeyahay Trump oo iimaanka Allah ku qabo. marka waxaan leeyahay ninkan horta Trump uu ku qafiifay gabar la yiraahdo Ilhaan. 24 saac Soomaali iyo Ilhaan buu haystaa. midda labaad oo jirta xisbigan republicanka waxaan u malaynaa bilkiisa dhacay. dib dambe in loo arki doono u malayn maayo, because sida ay u dhaqmayaan maba u malaysid dad doorasho raba, maba u malaysid dad dalka inay xukumaan raba, maba u malaysid dad dalka haysta oo xukumaya inay yihiin. ninkan Trump u yimi xaalad faraha kasii baxaysa, dhaqaali waa sii burburaya. businessyadii oo dhan albaabada u laaban. haddana aadaya inay soo sawiraya businessyadii oo dhan albaabada u laaban, waa xiran yihiin. dadkina waa aragtaan maalin walba qofaa la dilaya. 5 jir baa la xiraya. ciidanka uu soo diray anigu horaan u sheeg waa juqraa, waa ciidan aan akhlaaq la barin, aan ciidannimo u samaysnayn. taas way afka u xirtaan. bilaa baan kugu dhaarshay nin adiga gacantaada ku jiro oo dhulka kuu yaal oo 20 nin ay korka kaga degtay oo ay saa u dilayaan baa la leeyahay isagaa wax dilayayo khatar buu ku jireen. marka hadda kolley waad aragteen shirka jaraa'id ay qolada qabatay wixii kasoo kordhay. tii horeba wax laga qabtay male. ninkii wuu iska tamaashaadaya baa la yiri, wuu iska dalxiisaya, waxba lagama qabanin. marka meeshaan waxaa kasoo socda
webiga yaaweyn waxaan ka yaabayaa annagoo xamaali ku jira oo 12 saac shaqaynayna oo lagayna belbelayaan oo dhaqaale haysan oo ay sidaas jeegba jeeg nooga dhigeen oo wax walba noo xisaabeen inay meesha burburi doonto xaaladda Minneapolis ku jirto caadi ma aha ninka Trumpna ilhaan iyo Soomaali baa la tusay nimankii ISIS ahaana shacabkii iyaga waxa weeye maalintooda shalay waa arkayseen ninkii iyaga haysta oo leh waana la shaqayn waayay banaan bax bay nagu wadaan wayna daba socon maxay kuula banaan bixi waayeen ku daba socon waayeen waxaa tahay qof ummadii uu isaga qoraga u qaato dareeska u gashado oo rabay inuu ilaaliyo haraas garaynayo dilay ilmihii dhan iskooladii jaamacadii way noo aadilayihiin cabsi baa jirta annaga waa weyneen boorsooyinkan ku wadanaa bahaaladii baasboorkii dana wadan xora joogta baa lagu leeyahay marka Trump dalkii uu ku ciyaaray laakiin meesha Minneapolis ay maanta ugu xuntahay ninkaas loo dilay ilaa hadda banaan bax ugu socdaa anna haddaan u socdaa insha Allah ilaahay ugu soo amaansado oon rabaa bal wixii aan ku soo arko haddaan sidii maalin dhaweyd arko dee meesha khatar inay taana nafteeda khatar uma gelinayo waa kasoo cararayo wixii aan kasoo duuban waa inii sheegaya haddii meel caadi wax laga duubi karo tahana life baan kasoo dhigaya waa inii soo daaraya marka saasaa ogaanaysiin Minneapolis xaaladeeda waa ujeediin wixii soo kordha ninka hadda inta kaliya la sheegay inuu 35 jir yahay inuu nin maaragtay Minneapolis u dhashay yahay intaas hadda la sheegay in sida loo dilana waad aragteen oo ninka sida ay u dilayaan shirki jaraa'id oo hadda ay qabteen wixii kasoo baxay waa ujeedaan iyo sida ay uga hadleen dawladdiina dhinaceeda wixii kasoo baxay iyadana waa aragtiin inay garab siinayso oo ay rabto in la baabi'iyo dadka oo la dilo dadka ay canshuurta ka qaadanaysay dadkii doortay dadkii madaxda ay u ahayd Trump dadkii doortay buusaa u galaya dadkii ugu intii joogtay in yar ma ooyo kulli waxay doorteen Trump Soomaalida xataa waa ogeydeen oo masaajidada ku dhagsanayeen meesha mambarka nin buriyaqaba ilaahay aqoonin munaafiqa ilaahay nacladay bay mambarka masaajidka ku dhajiyeen sawirkiisa caradu halkaas ay ka timi wadaadadan calooshooda kaliya iyo jeebkooda kaliya u shaqaysta ee Minneapolis jooga uma dirogay wallahi caradu meel kale kama imaan kuwan baa dhibkan dhan keenay meesha uga ololeynayeen waad arkaysa masaajid dhexdiisa uga ololeynayeen ninkii sidaa ay ugu ololeeyeen maanta businessyadoodii iska badaa iyaga meel walba xiran tahay maxay ahayd Mexicaankii Soomaalidii dadka ugu daran oo target garaysanayaan waa Soomaalida haddana wuxuu ku soo daray dadka cadaanka wuxuu u leenahay waad arkayseen maalin dhaweyd ninka cadaanka ah inuu gabadhii wax duubaysa ku lahaa miyaadan ku cimri qaadan wixii dhacay tiibu maanta ka dhabeeyeen maalin dhaweyd miyaadan ku cimri qaadan buu yiri markuu gabadha ka qaadanayo taleefanka dhirbaxay miyaadan ku cimri qaadan wixii maalin dhaweyd dhacay gabadha aan dilay ee cidina noo raacan miyay intaas aadan ku cimri qaadan buu ka wadi haddana maantii buu ka dhabeeyay marka waad ujeedeen Soomaaliyeed iyo ummadda meel kastoo aad joogtaan horta bal ha la isu duceeyo Minneapolis xaaladeeda halkaas ay maraysaa qofkii labaad ilmo 5 jir ah gabar yar oo maaragta qashin daadinayso la qabsado saa aragtay gabadha hadda maalin dhaweyd qabsanayeen soo daayeen nabraha wajiga ku leh gabadhaas ma dagaalamin hadba waxay leeyihiin dadka la dagaalamay dilayaan no gabadhaas markay qabanayeen waa hayna fiidiyoyadeeda anaguna waa soo geliyay caadi bay isu dhiibtay waa la xiray gaariga la geliyay way u dileen haddana gabadha iyo daqta qaran bay noo keeneen marka dambe soo celiyeen marka xaaladda waad ujeediin la is ilaaliyo hana la taxadaro laakiin ogaada meesha sharcigii iyo kala damayntii waa dhamaatay dawladana anigu waxaan u maleyn jiray in gobol kastiba isagoo iskiis sharci u leeyahay waxaad moodaaba in state ka xoog badan yahay oo state ka hadii uu amar soo saaro kuwan ay waxba ahayn calaacal iyo shir jaraahid ay qabtaan iyo maaragtay sababta haday awood leeyihiin ninkii gabadha dilay talaabo ka qaadi lahaayeen marka ilaahay xaalka ha sahlo wixii aan soo arko gaaradan u socdaay na iisoo duceeyeen ilaahay sharkooda iga qabto oo nabad igu soo celiyo wixii warana waa in la wadaagaa dacaa waqti fiican soo noqdana waa in la wadaagaa haddii kale tana berri baan iisoo duubaya waan in salaamaya iisoo duceeya magaaladana u duceeya xaaladana la socda wixii kasoo kordha da'diisa way sheegeen inuu reer Minneapolis yahay way sheegeen hadday soo sheegaan cadaan iyo madow wuxuu yahana waa in la soo wadaagaya shirka jaraa'idna waa aragteen intaasaan leeyahay miskiintii walaasha nadiif qaran iyo jikadeena wax walba hays please copy linkiga ii taabta barnaamijka ii share gareeya commentigana dhac kusoo qora idinkana ducada usoo badiya anana salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu baan leeyahay asxaabtayda qaaliga soo dhawaada qalbi furan